lowsku waxa uu ka mid yahay midhaha faa'iidada badan u leh caafimaadka bani'aadamka. dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay jecel yihiin cunista lowska, halka kuwa kalena ay ka qaadaan xaalado xasaasi ah oo aan jeclaysan, balse badiba dadku ay jecel yihiin midhaha lowska inay cunaan. muuqaalkan kooban waxaan ku soo qaadan doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira midhaha lowska. lowsku wuxuu faa'iidooyin badan u leeyahay jidhka bani'aadamka. faa'iidooyinkaasi oo lagu xaqiijiyay cilmi baadhisyo kala duwan waxaa ka mid ah caafimaadka uu u leeyahay wadnaha. lowska waxaa ku jirta saliid aan cufnayn, taasoo faa'iido ballaaran u leh wadnaha sida ay xaqiijiyeen khubarada caafimaadku. wuxuu lowsku la dagaalamaa cudurka dufanka ee loo yaqaano cholesterolka, oo ah subagga fadhiista xididada wadnaha, kaas oo ka hortag u ah xanuunka wadnaqabadka iyo faaliga. sidoo kale lowsku waxa uu faa'iido u leeyahay cudurka macaanka ama sonkorta. daraasad caafimaad oo waqti dhow la sameeyey waxaa lagu ogaaday in lowsku uu yareeyo 22% halista cudurka macaanka ama cudurka sonkorta. sababtana waxaa lagu sheegay inay tahay maado ku jirta lowska oo loo yaqaano manganiis, taasoo muhiim u ah kontaroolka sonkorta jidhka. cunista midhaha lowsku wuxuu ka hortag u yahay dhagaxaanta ku samaysanta xameytida, taasoo badanaa la burburiyo ama xameytida laga saaro qofka marka ay xanuunkaasi asiibo. cudurka kansarka ayaa sidoo kale la ogaaday inuu lowsku wax ka taro. lowska waxaa ka buuxda maado loo yaqaano beta-sitosterol. waxa ay maadadani ka hortag u noqon kartaa burooyinka jidhka ku samaysma, waxayna xakamaysaa korriimadooda. daraasad lagu sameeyey dalka Maraykanka ayaa lagu arkay dadka lowska cunaa usbuucii 2 jeer ugu yaraan 8% halista kansarka ku dhaca malawadka. xusuusta ayuu sidoo kale lowsku faa'iido u leeyahay. lowsku waxa uu ka mid yahay cunooyinka loo yaqaano brain food, sababtoo ah waxaa ku jira fiitamiinada B3 iyo kuwa kale, waana fiitamiinka loo yaqaano niacin, kaasoo kobciya shaqada maskaxda sarena u qaada xusuusta. waxaa kaloo lowska ku jira maadada loo yaqaano resveratrol, kaasoo 30% siyaadiya qulqulka dhiigga ee maskaxda. niyad jabka ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in uu lowsku wax ka taro. midhaha lowska waxaa ku jira borotiin loo yaqaano tryptophan, kaasoo ka qayb qaata soo saarista maado kale oo loo yaqaano serotonin oo muhiim u ah la dagaalanka niyad jabka iyo diiqada. wuxuuna lowsku u shaqeeyaa sida qaar ka mid ah daawooyinka lagula tacaalo niyad jabka. lowsku wuxuu muhiim u yahay sidoo kale hooyada uurka leh, maxaa yeelay waxay ka helaysaa maadada loo yaqaano folic acid, maadadaasi oo hooyooyinka lagula dardaarmo inay cunaan marka ay uurka leeyihiin. wuxuuna muhiim u yahay korriimada uurjiifka, sida lagu arkay dhowr daraasadood oo lagu sameeyey hooyooyin lowska cuna. waxaana la arkay in 70% ay ka badbaadaan carruur ku dhalata cilada dhabar furanka. lowsku wuxuu muhiim u yahay lafaha iyo murqaha carruurta koraya, maadaama ay ka buuxaan borotiino kala duwan, waana sababta loogu dardaarmo in carruurta la siiyo. lowsku sidoo kale wuxuu ka mid yahay cunooyinka lagu dhergo, sidaas darteed qofka joogta u cunaa badana dhaqso uma cayilo. lowsku wuxuu muhiim u yahay maqaarka bani'aadamka, wuxuuna yareeyaa laalaabka maqaarka. sababtuna waa fiitamiinada loo yaqaano C iyo E oo ka buuxa lowska, taasoo iyaduna muhiim u ah qanshinsaarka. sidoo kale lowsku wuxuu xoojiyaa jiridda timaha, sidaas darteed wuxuu ka hortag u yahay daadashada tinta iyo bidaarta ragga, gaar ahaan nooca bidaarta ah ee ay keenaan cilladaha hormoonku. ugu dambayn, lowska waxaa ku jira macaadin iyo fiitamiino kala duwan oo jidhka bini'aadamka faa'iido ugu jirto, qofkuna wuxuu ka helaa tamar fara badan. isticmaalka haddaba siyaadada ah ee lowska wuxuu dadka qaar ku keenaa xanuunka loo yaqaano gaaska. dadka qaarna waxa ay ku leeyihiin sidoo kale allergy, taasoo halis gelin karta nolosha qofka. si kastaba ha ahaatee, khubarada caafimaadku waxay ku dhiirigelinayaan dadku haddii aanay cilladahaasi lowsku ku keenaynin inay qaataan xaddi kooban oo ku habboon oo lows ah.